maalinta jimcaha waa maalin nasiino oo qof walba uu jecel yahay in uu waqti siiyo naftiisa sida caadiga ah magaalo walbana waxa ay leedahay goob dalxiis oo ay dadku isugu yimaadaan magaalo walba oo kamid ah dalkeena Soomaaliya waxa ay leedahay goob taariikhi ah oo dadku ay isugu yimaadaan halkan waa magaalada Jowhar gaar ahaan qaybtan iga dambaysa waxa loo yaqaanaa Xiintooyda magaalada Jowhar waxana ay kamid tahay webiga mara gobolkan Shabeellaha Dhexe halkan waxa u soo dalxiis taga boqolaal kamid ah dadka ku nool magaalada Jowhar oo hadda ay kaga duwan tahay maalmihii hore waxa ku sugan magaalada Jowhar oo ku soo qulqulaya dad badan oo ka yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkanna ay ku cusub tahay xiiso badanna u qabaan inay yimaadaan si ay u arkaan Xiintooyda magaalada Jowhar doorka warbixinteena maanta bahda bilan waxa uu ku aadan yahay Xiintooyda magaalada Jowhar waxa indhahaagu qabanayaan dooga dhirta oo ay dheer tahay qulqulka biyaha webiga oo ay indhahaagu jeclaysanayaan daawashadooda qulqulka biyahan ayaa waxa ay xiiso u siiyeen markaa halkan damaashaadka u timaado oo ah kuwa aan joogti lahayn kana imaanayo webiga qaybtan kale sidoo kale damaashaadka waxyaabaha xiiso u yeelay waxa kamid ah halkan marka aad taagan tahay waa meel sabiibax ah oo haddii aadan sigsaan wadin ay khatar u tahay inaad ku dhacdo qaybo badi dadka halka damaashaadka u soo tagay waxa ay sitaan sigsaano oo ay ku sabiibaxayaan si ay u dareemaan neecawda iyo macaanta Xiintooyda Jowhar liido jaziiro in badan oo tag laakiin meeshaan ka jeclaa inta ka jeclaa inta liido inta macaanta ku baashaana dhalinyaro oo walaalaheenana joogo marka dhalinyartaas walaalaheena ku qabeysanayo iyagana way ku faraxsan yihiin maasha Allah dhalinyaro istakharina joogo wax walba kugu dhaco waa lagu garab istaagaa marka waxa la xaq koytaanka laakiin inta beledkeyga waa qaar kamid ah dhalinyarada oo ah kuwa ugu badan ee dalxiiska u yimaada halkan waxaana weydiiyay farqiga u dhaxeeya dalxiiska webiga iyo sidoo kale kambada meeshaan waa Jowhar maanta waa maalin barakeysan waa maalin jimcaha meeshaan waxaan u imaanaa damaashaad waa liido Jowhar mar walbana waa ku damaashaadna halkan la joogo maxaa la dareemaa neecaw macaan farxad waa la dareemaa mar walba meesha la joogo qof walba meeshaan joogo neecaw farxad walba dareema nin walba meeshaan joogo farxad buu dareemaa waa wili liido ma ku dawaalataa waa ku dawaashay si fiican farqiga webiga iyo badda u dhaxeeya ma noo sheegi kartaa marka uu dalxiisayo si fiican farqiga webiga iyo liido u dhaxeeyo waxa waaye meeshaan waa meeshii aan ku dhashay waa dhulkayga hooyo Jowhar waa aad ma u jeclahay farqiga u dhaxeeya waxa waaye liido iyo Jowhar farqiga u dhaxeeya waxa waaye liido marka tagaysid waa inaad isku tashataa laakiin Jowhar marka imaanaysid dhulkaaga hooyo waaye dhalinyaro istakharina joogo wax walba kugu dhaco waa lagu garab istaagaa marka waxa la xaq koytaanka laakiin inta beledkeyga waa jooga mid kamid ah dadka reer Jowharka ah waliba halkan dhowr jeer dalxiis u yimid marka hore magacaaga ku bilaw magacaygu waxa la Saacid Faarax Xuseen maanta oo jimcaha waa maalin caadi oo ummadda wada nastaan runtii meeshaan askaga dalxiisana askaga dabaalanayna dad badan halkan ma yaqaanin halkan maxaa la dhahaa meeshaan waxa la Xiintooyda waa meel oo aad u qurux badan oo hadina loo soo dalxiisto loogu qoobeesto oo dadka relax ay ku qaataan waa sababaha laakiin dadka sigsaanta u xirtaan maxay tahay sigsaanada dadka badan ugu jira sigsaanta wax loo xirnaa wax kale ma ahan dhagaxa ayaa wuxuu leeyahay waxyaalo oo cagaar camal oo sabiix marka hadii sigsaantaas uu qofka u xiran qofku uu dhaco khatar ugu jira inuu dhaco ama gacan ka jabto ama ilay ka jabto laakiin haduu hal sigsaan wato hal lagu ku taraarixi karo dadku ku cusub oo kale ka waran markii ka la yaabaya Soomaaliya waa la yaabaya waxay dhahay meeshaan saan biyaha u soo daadinayso oo saan qurxan maxay tahay marka waa meel aad u qurux badan waxaan jeclaa lahaa dhamaan liido damaashaad muuqato liido jaziiro in badan oo tag laakiin meeshaan ka jeclaa inta ka jeclaa inta waxa ku jirnaa qaybaha dalxiiska ee Xiintooyda magaalada Jowhar oo ku sugannahay dhalinyaro badan ayaa halkan ku sugan marka hore soo dhaw magacaaga ku bilaw waa dhawaay magacaygu waa Ayuub Yaxay Yuusuf kuna nool magaalada Jowhar ay Jowhar iyo dalxiiska ka waran Jowhar iyo dalxiiskaas wallahi aad ayuu u macaan badan yahay halkan waa taqaanaan waa Xiintooyda Jowhar ee magaalada Jowhar waxay inoo tahay sida liido kale liidana waa inagu qiim fiican tahay ma ku damaashaadna oo ku baashaalna xiliyada qoraxeedka waaya goorma imaadad saaki waxaan imaaday 3 saac iyo baracmal ilaa haddeer waa joogaa ilaa meeqa saac laga yaabaa inaad ku sii dalxiisto ilaa waxa laga yaabaa ilaa 5 saac iyo baracmal ilaa khudba aan ugu soo foodleh waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle mudan Cali Gudlaaw Xuseen salaamu alaykum sababaha reer Jowhar halkan ay ugu faanaan waxa qayb ka ah qulqulka biyahan halkan ka socda oo ah kuwa soo jiidasho leh naftuna ay ku raaxaysanayso inta halkan aad joogtid
waxaana ay arrintaas keentay maahmaahda caan ka baxday ee ah adduun jawhar ka joog aakhirana janno ka joog cabdinaasir socdaal bilan radio jawhar iska jooji hadalko orodikidka soo jaro dhul jacaylku